waa in cabashada wax laga qabtaa. dadkan waa dadkeen meel ay aadaan ma lahan, meel ay ku cawdaan ma lahan, cid u maqan ma lahan. waxay ay sugayaan waa garsoorka iyo cadaaladda. marka waa in sida ugu isku soo noqod wanaagsan muuqaalka idin muuqdo waa ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble oo runtii ka hadlaya in qof walba oo Soomaaliya uu tabanayo cadaalad dari taasi oo uu la hadlayay qolooyinka cadaaladda ka shaqeeya ayaa wuxuu u sheegay in maanta xilka aad haysaan aad bari weyn doontaan haddii aad maanta wax wanaaga suubisaan bari marka dadka caadiga noqotaan aad idinkuna cadaalad heli doontaan taasi oo ula jeeday maanta haddii aad ku dadaashaan in bari aad miraheeda cuni doontaan wuxuu kaloo sheegay ra'iisul wasaaraha inuu waqtiga aad ugu yar yahay haddii uu haysan lahaa waqti taan ka badan oo ka dhaxdooda xafiis ka furan lahaa si uu la socdo arimaha iyo hawsha sida ay u socoto isagoo runtii sheegay in dadka Soomaalida ay aad u dhibaataysan yihiin loona baahan yahay in runtii loo suubiyo dadaal iyo waqti badan loo geliyo si dhibaatooyinka ay ugu baxaan muuqaalka oo dhameystiran ka daawo channelka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe-ka inoo saar oo noo sii share garay si aan u helno boqor adigoo kale haddii aad noola sii joogtani laaga waa xaggaaga aad baad u mahadsan tahay daawo muuqaalka oo dhameystiran cadaaladda aniga ra'iisul wasaare ahaan ama ka shakhsi ahaan waxay ii tahay ahmiyadda koowaad markaan runta idin sheego waa tiirka oo aasaaska ii ah dowladnimada waa tiirka aasaaska ii ahaa barnaamijkii xukuumadda ee aan horgeeyay baarlamaanka haddaan cadaalad la helin waddankan meel uu gaarayo ma lahan waa garan karaa caqabadaha iyo dhibka iyo duruufaha aad ku soo shaqayseen ee cadaaladda waa idinkaga garaabayaa waqtiga yar oo aan haysanno aniga iyo tiimka wasiirada ah waa ka xunnahay waqti yar aan haysana laakiin haddaan waqti fiican idin heli lahayn aniga halkaan xafiis ka furan lahaa si aan idinkula joogo oo aan idin dhegeysto shacabkana aan u dhegeysto baahiyadiina aadan ayaan warhayaa waa garan karaa waagii dhalinyarada ahaa gobolka banaadir oo aan haddaan joogno maxkamadihiisa waa u lahaa aadi ayaan u shaqayn jireen wax kasta waa isku toosnaayeen laakiin hadda waqtiga iyo dhibaatooyinka iyo duruufaha adduunka isbedelay iyo dhaqaalaha iyo dagaalada aan ka soo baxnay ee dalkeenna aafooyinkay nagu reebeen waa garan karnaa waa inaad taas u dulqaadanaa waana waxa aan waddankan u nimid way naga go-an tahay dadkeennaan soo noqday ama dalka joogo inaan si cadaalad ah iyo hufnaan iyo inaan contribution waddankan gelino marka aniga Rooble ahaan waa iga go-an tahay cadaaladda inaan muhiimadda siiyo waa idinla shaqaynayaa waa idin soo dhaweynayaa waxaan kaloo halkan rabaa inaan kaga dardaarmo walaalkay uu sheegay 50 qofood oo noo yimaado 25 waa eedeysana 25na waa maxaa la dhibane waa runtiis waa laakiin haddana magaaladii iyo dalkii waa cabanayaa farbal idinku soo fiiqayaa cadaalad darra la tirsanayaa maxaa la dhahaa in jidka loo taagan yahay oo kiisaskooda ama faylashooda aan la qabanin haddaysan la soo xiriirin ama sida ay rabaan garsoorka tiimka markaa ka hortagaya ama soo dhaweynaya aysan ula dhaqmin waxay sheegaan inay ku dulman yihiin halkaa iyagana waa dhegaysanay waana dhegaysan doonaa idinkana iyagaa ka tirsan tihiin iyagaa matashiin maahan inaad ka didaan maahan maxaa la dhahaa inaad si kale u aragtaan adduunkan kama dhammaanayso cabasho iyo eed intaan noolnahay intaan ka dhimanayno ilaa aakhiri laga gaarayo waxay way soconayaan waxaa loo baahan yahay wanaajin iyo ka warhayn shacabkan xaqiiqda markaa idin sheego iyagana waa dhiban yihiin ya haddii 25kaas eeday oo wax soo eeday aad dhehaysiin waa eedaysanayaasha waxaa jirto qaar saxan uga jiraan waa soo ognahay dhammaanteen suuqa waa la xiriiraa teleefoonadeeda weli aniga ma dansano waa layla soo xiriiraa saan hore idinkugu sheegay haddaan u sheegay galaalayaha waa in cabashada wax laga qabtaa. dadkan waa dadkeen meel ay aadaan ma lahan, meel ay ku cawdaan ma lahan, cid u maqan ma lahan. waxay ay sugayaan waa garsoorka iyo cadaaladda. marka waa in sida ugu horeysa wax looga qabtaa. anigana halkan waa usoo badnaanaya maadaama aan uu yahay cadaaladda tiirka koowaad oo aan ahmiyadda siinayo garab istaagaya waa ogahay Ustaad Saalax waa sheegay budgetka aan ugu talagalnay wuu yaraa wuu garan karaa wasiirka aad ugu dooday waa dood ugu badnaa oo laga bixiyo miisaaniyaddan isaga soo jeediyay anigana garabaan ku siiyay xaqiiqdii laakiin duruufahan haysto ka war haysan dhammaanteen duruufo adaga waddan ku jiro duruufo adaga waddankan kaga shaqaynayna dhammaanteen ninka qofka ugu sareeyo ilaa qofka ugu hooseeyo marka idinka waxa la idinka rabaa waajibaadka saaran inaad gudataan ummadana aw cadaalad fashaan cadaalada dhammaanteen wada deeqdo aniga maanta meeshaan ugu sareysa hadaan joogo berri waa imaanaya dadka oo waxaan ka mid noqonayaa bulshada qaybaheeda hoose
berri waa idin imaanaya marka haddaanan maanta waddadii aan cadaaladdaas ku heli lahaa aan hadda samaynin anigana berri dulmanaan noqonaya idinkana sidoo kale qofna ma qorin inuu maanta meesha wada joogtaan uu wada joogo waxaan waa darajo ilaahay bosiishanaa wada joogtaan kaalimaa wada joogtaan berri meesha aad joogtaan meel ka hooseysa tegi karnaa ama bulshadeen u noqon karnaa waxa aan beerano ayaan berri helaynaa waxaad maanta samaysaan hadday xun yihiin inaad idinkana berri wax fiican helaysaan ha ku talagelina waxaan waxaa waa ilaaha bixiyo milkiyadan iyo darajadan inaan shacabkaas sida u danqanayana uga danqano waa muhiim waay shacabka ha loo nax walaalayaal ilaahay ka cabsado mas-uuliyiintii aad tihiin eed qaadayaal aad tihiin nin mas-uul qaada waa nin eed qaad wax kastoo aad tiraahdid maxaa la dhahaa waa saxsanahay ama waa nalaga gardaran yahay mar kasto bulshada way saxan tahay taas horta xisaabta ku dara ciddaa meeshaan u fadhina maahan caruurtiina maahan reerihiina maahan eheladiina shacabka soomaalida halkan u fadhinaa inaan qaadno waayo mas-uuliyadda shacabka soomaaliyeed ay naga filanayaan oo ah inay helaan cadaalad sax ah ku salaysan hufnaan iyo is-aaminaad